ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya gaar ahaan qaybta Duufaan ayaa xalay fiidkii waxay magaalada Muqdisho ku dileen askari ka tirsanaa ciidanka booliiska gaar ahaan sida gaarka kuwa u tababaran ee Haramcad. askariga la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Axmed Cabdi Kaysane waxaana toogashadiisa ay ka dhacday qayb ka mid ah xaafadda suuqa xoolaha ee duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. dad goobjoogayaal ah ayaa waxay warbaahinta gudaha u sheegeen in dilka uu yimid kadib markii ay kala shakiyeen askariga la dilay oo uu la socday mid kale oo Haramcad ah iyo ciidanka Duufaan oo xilligaas howlgallo baaritaan ah ka waday xaafadda suuqa xoolaha waxaana la sheegay inay israasaaseen kooban dhaxmartay labada dhinac. saraakiil ka tirsan laamaha amniga ayaa ku waramay in gacanta lagu soo dhigay ciidankii ka dambeeyay dilka askariga haatan su'aalo lagu weydiinayo mid ka mid ah saldhigyada ku yaala gobolka Banaadir. si kastaba askariga la toogtay ayaa ka mid ahaa ciidankii ugu horeeyay ee lagu aasaasay booliiska gaarka ah ee Haramcad waxaana uu dhawaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho. waxaa sidaas warbaahinta u sheegay qaar ka mid ah ehelka marxuumka. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.